maxkamadda gobolka Banaadir ayaa dib ugu soo celisay muwaadin Soomaaliyeed gurigiisa oo muddo 25 sano ah laga haystay sida uu nagu warramay wariyahayaga Nuur Siciid Tahliil. Xaliimo Cabdulaahi Daahir Dhagaweyne oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo in ka badan 20 sano gurigeeda si sharci darro looga haystay ayaa maanta waxaa si rasmi ah gurigeeda ugu wareejiyay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Dr. Aweys Sheekh Cabdulaahi gurigaasi oo ku yaala xaafadda Kaasa Balbalaara degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir oo kormeer ku sameeyay qaybaha kala duwan ee guriga oo ay ka muuqdeen burbur aad u xoogan ayaa ugu dambeyn ku wareejiyay muwaadin Xaliimo Cabdulaahi Daahir Dhagaweyne. Anigoo ah gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir waxaan ku wareejinayaa gurigan oo ku yaala degmada Hodan Kaasa Balbalaaro gaarka masaajidka Sheekh Cali Suufi dhaxaltooyada reer Daahir Xaaji Cusmaan Sharma Arke oo ay wakiil u tahay Xaliimo Cabdulaahi Daahir Dhagaweyne ay wakiil u tahay dhaxaltooyadaas gurigaas oo maxkamadda gobolku xukuntay kana saartay dadkii deganaa bilqada iyo sharci darrada ku deganaa waxayna ku wareejisay gurigaas Xaliimo Cabdulaahi Daahir maanta oo ay taariikhdu tahay 31 bishii shanaad 2017 waxaan ku wareejinay guriga. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ugu baaqay dadka sida sharci darrada ku degan guriga aysan lahayn in ay si degdeg ah uga baxaan haddii kale ay la kulmi doonaan ciqaab adag maadaama lagu jiro bishii barakaysneed in laga tanaasulo dulmiga hantidana lagu wareejiyo dadkii iska lahaa taa haddii la waayo waxaa ka dhalan doonta ciqaab qofkii hantida lahaa hadduu soo dacwoodo oo maxkamadda gobolka Banaadir u yimaado oo ay caddaato qofkaas inuu guriga ugu jiro si sharci darro ah maxkamaddu waxay ka qaadaysaa tilaabo marka ugu horeysa waxaa lagu xukumayaa 26 sano oo qofkaasi guriga deganaa ijaarka ah baa lagu xukumayaa waana la xirayaa xabsiguna ku jiraya ilaa uu iska bixiyo lacagtaas xaq darrada uu ku qaato. intaa kadib ayaa Xaliimo Cabdulaahi Daahir Dhagaweyne oo ah milkiilaha guriga lagu wareejiyay ee sida sharci darrada looga haystay ayaa tilmaamtay inay aad ugu faraxsan tahay in muddo kadib ay gurigeeda dib u hesho. waa maxkamadda sharafta leh si sharaf badan ayay hadda iigu wareejisay waxaan u mahadcelinayaa maxkamadda gobolka Banaadir oo juhdi weyn u gashay oo xaqeygin ii dhicisay si cadaalad ahna ee xukunkaas ku fulisay. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa horay sidan oo kale dib ugu celisay dad si sharci darro looga haystay gurigooda inkastoo ay maxkamadda sheegtay inay weli jiraan muwaadiniin badan oo guryahooda xoog looga haysto. Nuur Siciid Tahliil, Radio iyo TV qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.